kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka siyaasiga iyo siyaasadda oo aad ka daawataan Alaba TV-ga caalamiga Nabad TV. toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya aniga Cabdixakiin Cabdullaahi Gamaadid. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah Professor Cali Khaliif Galleer oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu magaca dheer ee geeyiga Soomaaliyeed. waana nin soo maray xilalka ugu sarreeya deegaanada Soomaalida sida Soomaaliya. waxa uu soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii hore soo dhawo Professor Cali Khaliif Galleer ku soo dhawo TV-ga. Gamaadid waa mahadsan tahay, aad baan ugu faraxsanahay inaad fursadan ay siiso anoo magaalada Jigjiga jooga. waayahay aan barnaamijka u gudagelin waxaan rajeynayaa in Professorka taariikhdiisa kooban oo isaga noo soo koobi doono. soo dhawo Professor. kulley daana waahay xilal iyo waxyaalahan ka soo qabqabtay Soomaaliyana waa jiraan. anigu aagaas aan ku dhashay Sooliya Sanaag iyo Cayn kuna soo koray iskuulka ka bilaabay kabacdina iskuulka Sheekh iyo dugsiga dhexe iyo ka sareba ka dhameeyay. nasiib wanaag deeq waxbarashaan Mareykan u aaday. markaan soo dhamaystayna waa soo noqday. waqti dawladnimadu cusbeyd bay ahayd. magaalada Afgooy yaa gudoomiye ku xigeen la iga dhigay. kabacdina wasaaradda la soo bedelay. sanad iyo waxaasanba ka shaqeynay wasaaradda arrimaha gudaha. Mareykan baan ku noqday digriyo maaragtay masters iyo PhD waxaasan ka soo qaatay. waa soo noqday iskuulka Siidam la oran jiray ee shaqaalaha dawladda wax lagu tababari jiray. waan macallin ka ahaa agaasimo guud ka noqday. kabacdina agaasimo guud maareeyo guud waxaan ka noqday warshadii sonkorta ee Isnaay. waxaa ii xigtay mashruuc markaa la bilaabay oo warshad cusub ah oo Mareeri ku taala ina maareeyo guud ama gudoomiye u noqday. wasiir baan noqday markaa kabacdi. ruuxaantii waqtigaas wax badan oo Soomaaliya dhibaatooyin horaan loo ogeyn oo dagaalkii 77 ka bacdi arrimo cusub oo badan oo culus baa ku soo biiray. Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay nin aan la shaqeeyay buu ahaa intuusan wadankaba ciidamadu ay qabsan. marka awal deegnay shaqaale dawladeed baan ahaa oo aan waxa xamar iyo ka socda iyo golaha wasaaradda iyo siyaasadda qaranka iyo marka muddo aan dheerayn baan wasiir ka noqday. waxyaalo badan baa aniga iyo ragaan waqtiga golaha wasaaradda ku wada jira noo muuqday oo tala ahaan aanu marka dawladda aanu ka mid nahay aanu runtii isku taxalluujinay. laakiin waxba waa nooga suurtoobi waayeen. markaasaanu go'aansanay kulley rag badanna waa ahaayeen in badan oo iyakii waaba dhinteen inaanan berri ka maalin haddii isbeddel yimaado inaanu ka mid noqonayno rejiimkii ama dawladdii hore oo markaan ka baqaynay in dambiyo badanba naloo qabsado. marka bishii May 1982 yaan go'aansanay annaka iyo dhowr inaanu waddankaba baxno. marka waxaaba jiray jabhado laba ah oo SSDF oo Cabdullaahi Yuusuf iyo qolyihiisaas oo ay samaysayeen markaa cusbayd. waa ku talagalay annagu markaa qolyaha iyagii baxayay oo ninkiis Siilaanya uu ka mid ahaa inaanan ku biirin jabhadaha midna haddii la isu keeni karo oo jabhad Soomaaliyeed oo qaranka oo noqon karta rejiimkan wax lagu bedelo soo bandhigi karta yaanu ku talagalay. nasiib darro nooma suurtoobin. anigu markaan Mareykan tegayba jaamacadda Harvard baan tegay oo intaan waddanka ka teginba xiriiraan la lahaa. halkaasaan joogay muddo waxaan u malaynayaa 82 ilaa 88. kabacdina jaamacaddan masterskii PhD ka qaatay Maxwell Syracuse University yaan aaday. iyadana
1989 ilaa 97 8-9 sano jaamacaddaasaan professor ka ahaa kabacdina oday aabbahay oo rag wuxuu dhalo weyn aan u baaba jiray odaygii waa xanuunsaday indhuhu beelay Maraykan baan bageeyo 6 bilood iyo weli joogay laakiin waxba waa loo qaban kari waayay markaas ay u kaliftay inaan Maraykan ka imaado Soomaaliyana kuma noqon karin markaa laakiin inaan Dubai business aniga nin dahabshiil la yiraahay iyo ninina boore la yiraaho Djibouti inaanu shirkad Somtel la yiraaho telefoonada iyo waxa yaan samaynay guddi baa jirtay iyana Somali Business Council la yiraaho Dubai aan gudoomiye u ahaa guddidaasana lagu yiri shirba Djibouti jira oo madaxweynaha Djibouti wadana Ismaaciil Umar Geel uu ku casumay Soomaalida inay isugu yimaadaan anagu markaa runtii uma tagin inaan siyaasad galo laakiin meeshii baan tagay dhowr bilood baan joognay faritog dheer bayba kula xushaay waxa arkay aniga oo wixii kuna dhex jira maamulkii markaa uu lagu heshiiyay in la sameeyo Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweyne loo doortay anigana prime minister in magacaabay iyana wixii uu taasu taariikhdaas midaan fogeen bayada warkeeda waa la hayaa ka bacdina Cabdiqaasimkii baanu isqabanay anooba xamar ku maqan markii September 12keedii Maraykanka magaalada New York Twin Towerska la qarqarxin jiray la dumin jiray anooba Security Councilka iyo Maraykanka iyo ku maqan ya madaxweynihii iyo qoliyo markaa kulli aanu siyaasadda isku hayno cabinetka kamid ahaa baarlamaankii geeyeen in cod kalsooni anooba ka maqan wadanka lagu qaado haddii layga qaaday anna iskama odhan haddii meeshii laga qaaday banaankaaga iska mare waa ku noqday inaan xil wareejiyo sidii baan kaga tagay markaana jaamacad kale oo magaalada Minneapolis ku taala University of Minnesota la yiraahdo yani yana macallin ka noqday iyadiina kulli uun muddo ilaa uun markaa dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Ethiopia 2006 markaa Ethiopia ciidamadeedu ay xamar galayaan markaa maalinta xajkan ba joognaa maalintaas 2000 waxa weeye bishii December 2006 runaantii arintaas arrin fajicisa ay ugu noqotay ninun kulli Soomaalnimo iyo qarannimo iyo wadaninimo Soomaaliyeed kulli ay ku weynayd bay ahayd Maraykan baan ku noqday jaamacaddii baan ku noqday runtii way igu adkaatay inaan sii joogo waxaan ka doorbiday inaan imaado bal wixii wax laga qaban karo marka wixii lala soo rafay urur bay nagu kaliftay khaatuma la yiraaho inaan dhulkaas Sooliya Sanaag iyo Cayn oo siday gaaladu tiraaho dhul la isku bahaysta disputed territory ayaan darradu waxa weeye dadka reer Sooliya Sanaag iyo Cayn bishii December 2011 iyo January 2012 dad 5,000 kuna ya meesha ku shiray u malayn maayo dad kale oo tiro inta leegli isugu timi oo markaa ay ku cadeeyeen garaadadii baa joogay culimada diinkii baa joogay xuqaashii baa joogtay waxgaradkii baa joogay markaas ay ku aansadeen maamul ay iyo ku leeyihiin inay samaystaan kullee markii ugu horeysayba cid naga hortimi waxay labada maamul ee dhinacyada naga xiga ee Garowe iyo Soomaaliland waaba nagu soo duushay annagoo markaa taleex joogan maqalay inay taleex noogu imanayaan waaba nimi buuhoodlaan dagaalkii buuhoodluuba ay noogu yimaadeen waa la jabiyay Somaliland ka bacdi baabuur baanu halka kaga soo baxno jigjiga nimi
aad baa halkana loogu soo dhoweeyey Addis Ababaan tagnay run ahaantii Meles oo markaa prime ministerka waddanka ahaa aad buu ugu dadaalay annaga iyo Somaliland inuuna dhex galo qolyaha Somaliland yaa runtii ka biyadiiday annagu markaa waxay nagu kaliftay dagaal iyo jabhadnimo hawsheeda inaanu gallay meel cusub bay ahayd meel aan dekad lahayn cashuur meel ay ka qaadaan lahayn dadka uun ummadda dhulka u dhalatay dibadaha ku nool jaaliyadahaas yaa muddo wax nala wadwaday haddana waaba noogu yimaadeen annagu sanadka bacdi shir ku leh magaalada Saaxdheer qolyahan Somaliland Saaxdheer maaha magaalada Taleex markaana meeshay noogu soo galeen waa ka nimi markaa way markaan runtii jabhadnimo iyo dagaal aanu isu diyaarinay isla waqtigaaba gudoomiyaha la igu doortay madaxweyne Khaatumo waa 2014 markaa wax kale oo nala gudboona aan dagaalka ahayn ma jiro dagaal baan galay haddana mar walba waxaan u dhiifoonayn ciddii noo ogol inaanu maamul nahay oo dadka dhulka jooga meel lagu murmayo ayaan ahayn ummaddu ay dadka Soomaalida waxba ka gadanayn hadii Soomaaliya 4.5 noqoto oo qolo walba maamulkeeda yar dhisata inayna xaq u leeyihiin ay waxooda dhistaan waxa na ogolaado oo maamul ahaan yiraaha annagoo maamula yaanu idin la xaajoonayna Somaliland baanu helay meel aanu ka filaynay in iyana naloo jajabnaado oo xamar iyo garowe kama aanan helin dagaalkii uu socday muddo 2 sano aanu annaka iyo Somaliland markaa wada hadal la wadwadnay Soomaalidu waxay tiraahaa mahmaa horol Soomaalidu lahaan jirto maraan xamar joogay la igu qabsaday oo ahayd nin dameer dabadiis ka degay meel uga tooboon buu waayay tanna iyana saasay noqotay Somaliland maamulkeeda ciidan iyo ka ahayn oo tiri waxaan idin qoonsanaynaa inaad maamul tihiin indana inaga dhaxeeyaan aan wada hadallo Puntland lagama helin waqti badan oo badanna waaba gelinay xamarna lagama helin waxaaba igu kalifay inaan xamar warkeedaba iska ilaawo shir lagu qabtay magaalada Cadaado oo lagu aana shubayay gudoomiyihii Galmudug ee ugu horeeyay ninaanu isnaqeeyno Cabdikariin Xuseen Guuleed la yiraahdo yaa loo doortay isaga lagu aana shubayay madaxweynihii markaa Xasan Sheekh Maxamuud yaa meeshii khudbad ka akhriyay oo uu leeyahay waa nasiib wanaag inaynu Galmudugna maamul ka dhisnay habkii federaalka aan ku talagalay Soomaaliya waxa noo haray Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe haday labadaas maamul iyana samaystaan arintii federaalka iyo waxaan ku talagalay intaasiiba ku dhayihiin hadal baan meesha ka jeediyo waxaan wallaahi waaba la soconay oo Somaliland inay dalka kala gooynayso oo leedahay labadii dawladood ee Soomaaliya iyo Somaliland ee isu tagay ee Soomaaliya wada dhisay waxyaalo badan ay ka tirsanayaan oo qaarkoodna ay yihiin wax garowshi laga bixinayo qaarna ay runtii saa u sii dheerayn waxaana waa maqli jiray dadka reer Somaliland baa wax kala gooynay laakiin caawa madaxweynihii Soomaaliya yaa noo sheegay oo si qayaxan u sheegay inuusan Somaliland midnimo Soomaaliyeed rabayo mid kala gooynaya toona uusan u arkaynin inay ka mid yihiin Soomaaliya xamar baan ku noqon Xasan si qayaxan oo aan warwareeg lahayn oo diblomatic ahayn oo qayaxan buu u sheegay in Somaliland isaga ayan uga tirsanayn Soomaaliya dawladnimadii madaxweynaha iyo kama aanan arkaynin intii Khaatumo iyo inta rabta midnimo Soomaaliyeed inuusan u jajabnayn waa arkaynay laakiin wuxuu si qayaxan oo badheera u oranayaa
somalilan warkaba kuma jirto habka federaalkee la dhisayaa waa koonfur waa inta talaani uu xukumi jir anuu xamar baan ku noqday khudbaddaan meesha ka jeediyey oo dee maxaanba kala hadlaa sheegba warkiiba meesha ku yidhaana khudbad baan meesha ka jeediyey aan leeyahay annana haddaba halkan waa nooga dhammaatay haddii madaxweynihiiba saa leeyahay awal waxyaala xanxan iyo la isla dhumaalaysanayay waa jireen inay somalilan kama aana mid noqon inaanu wada hadallo la wadno markaasaan go'aanka dhabta aanan waa ka gaadhnay waa jireen markaa wada hadallo waxay noo bilbilaabmay laakiin meesha nagu kaliftay inaan xamar waxba noo ool oo maamulka jira madaxweyne iyo baarlamaan iyo xukuumad iyo shacab iyo saxaafad midna ayan aagga aanu ka nimi bosishon cad ayan ka qaadan warkii hadda ugu dambeeyey 2-3 cashe ka hor ee madaxweyne farmaajo gabadhu sahra fariid oo dadka dhulka ka yimi sooliya sanaag iyo cayn su'aal bay weydiisay ay tidhi maxay dowladda dhexe ka qabtaa dhulka dadkaasoo in badan ama dowladnimadii soomaalinimadii islaamnimadii halgamo badan u soo galay maxay dowladda madaxweynuhu ka qabaa madaxweynuhu wuxuu yidhi su'aashaas waa su'aal adag kamana jawaabi karo waxaan u qaadannay inaan waxba u ool sooliya sanaag iyo cayn inaan xamar waxba u ool middaan u qaadannay isna dee isagu sidii xasan ma odhan halkaa waxba nagama jiraan laakiin dad baaba qandi weyn u tashay oo filayey oo nagu waday maamul bay oggolaanayaan in ile maamullada kaleba way dhiseen dowladda dhexaa dhistay galmudug inta lagu dhisay wakhti la geliyey iyo inta kharash ku baxday waa wax la wada ogyahay farmaajo dee isna markuu yidhi waaba su'aal adag aanan ka jawaabay waxaa cad dee meeshuu ku odhan lahaa sidii xasan isagu waa ka gabbaday laakiin warku oodid jiidin iyo qaadis waa isla guryo geynuun waa maasan tahay waxaan dib ugu laaban doonaa markii lagu magacaabo wasaaraha soomaaliya waxaad sheegtay in aadan siyaasad ku jirin qaabkaad ku soo gashay markaa maxay ahayd kadib sidaad noo sheegtay marka inaad wasaare noqoto qaab noocee maxaa kaa socday may ra'iisul wasaare waxaan ku noqday meesha haddaanba joogno oo lagu daahay oo dowladda Jabuutina runtii aad isugu taxallujisay oo 8-9 bilood baa wufuud badan oo dhowr kuna yaa meesha joogay marka dee shir waa la qabtaa laakiin wiig iyo bil iyo laakiin 7 sanad ku dhowaad marka muddadii meesha la joogay waxyaalo badan oo aanan markii hore ka fikirayn yaa ay muuqday runtii waxa ay muuqatay in ay fursadi jirto in dawlad Soomaaliyeed oo dhexe la dhisi karo marka dee guddidii ama wafdigii ama dadkii shirka ka qayb galay yaan ka qayb galay doodo badan oo qaarna ayba shirweynaha yihiin qaarna iyadoo groups iyo kooxo loo shirayo oo fikirka ahaa Itoobiya ka yimi fikirka meesha la yidhaaho maxay ahayd hawaasa yaa waxa ku shiray qolyo markaa warlords ahaayoo hogaamiye kooxeedyo ahaa markaa fikir Itoobiya lafteeda dowladdii iyo maamulkii meesha jiray oo ahaa in Itoobiya hab federaal ah oo ku salaysan qowmiyaadka la dhiso fikir noocaas halkaa ka yimi yaa la keenay Djibouti meesha ay 4.5 warkaas uu ka imanayo oo la beelaynayo oo ay noqonayso halkaas laga soo minguuriyey marka dadka guddigooda yaa ka mid ahaa maxay ahaayeen guddigaas qolyaha waday dee runtii warku Soomaalidu iskuma seegana inkastoo niman 5-6 ahaa oo markaa hogaamiye kooxeedka ahaa ay ku shireen hawaasa laakiin dawladda Itoobiya lafteedu
dowladda Jabuuti lafteeda kama maqnayn fakarkan haddaan axsaabi jirin sida qureed dadkii wax loogu qaybin karaa waa taa hore ee dhaqankaa hore oo habaan horeyna soo marin waa laga yaabaa waqtigii ama kacaanka ama ka horba in fakar beelo iyo qabaa'il doorashooyinka marka la yimaado u jiro والله runtii wax kale oo wax lagu qaybsan karaa ma muuqan laakiin dhibaatada waxa weeye Soomaalidu waxay tirahaa arin xaq maaha sida wax loo qaybay laakiin xalun baa loo arkay xaq maaha laakiin xal baa loo arkay waa la isku raacay tiibaa la isku raacay nasiib darro markaaba waxa ka maqnaaday labadii ninba waa dhinteen Cabdillaahi Yuusuf oo markaa isagoo SSDF ahaa oo markaana maamulkii Puntland sanad iyo meelahaas uba jira iyo Somaliland labadiiba waa dhinteen Maxamed Ibrahim Cigaali iyo Cabdillaahi Yuusuf labadaba waa loo yeedhay qaramada midoobay iyo dawladda Jabuuti waa u yeedheen waa ogolaadeen labadooduba xoghayntoodii bay soo direen haddana nin walba qaramada midoobay iyo dawladda Jabuuti iyo waxoogaa wada hadallaa maxaa aniga iyo meeshan aan ka soo jeedo maxaa laga damacsan yahay maxaanu yeelanaynaa waxa la yiri de suga oo sida wax loo qaybsado labadoodiba saasay uga baaqdeen anigu fikirkaygu markaa in xal meesha ka muuqdo yuu noqday tartankii madaxweynihii iyo wixii lagu tartamayay waa ka qayb galay saddex nin baana ugu vote badnaa ninka la yiraahdo Cabdillaahi Axmed Cadow iyo ninka Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo aniga labadoodaba de golihii wasaaradda Maxamed Siyaad Barre waqtigiisa aan isugu nimay labada niman si fiican u naqaan laakiin waxa jirtay Cabdillaahina wuxuu ahaa nin siyaasi oo laakiin haddana safiirin badan soo ahaayo arrimaha wadanka yaala reeraha lagu sheego laakiin ninaan hawlaha aad ugu dhex jirin Cabdiqaasimna ee magaalada Xamar iyo khaasatan Shabeellada hoose tolkii baa haystay habargid ruqlamaha cayr baa haystay airportka Balidoogle yaan laga baxay iyaga haystay anu markaa waxa ay ugu muuqatay fikir ahaan labadoodan kii aan raacay inuu madaxweyne vote-kiga aan siiyo inuu madaxweyne noqonayo midkoodna waqti dheer kama aan wada hadlin laakiin vote-kii markii loo dhaadhacay Cabdiqaasim baan u codeeyay run ahaantii ballanade waaba jiray oo haddaan codkayga siiyey isaguna in uu prime minister nama ii magacaabo Cabdiqaasim waa ka galgashay halkaasi ka soo baxay inaan ra'iisul wasaare noqdo la iskagama ka ra'iisul wasaare noqoto halkaas taas soo buuxay la iskagama ka group baa helay marka aad wasaaro ku balan qaaday idinka group aad codka siisaan adigana group ka soo wadaxday anigu codkan meesha iyana maxaan u malaynayaa midkiiba dhowr iyo 50 cod bay heleen aniguna 40 codkan ninkii aan siiyo marka iyo soo baxay kuna soo bax Cabdiqaasim xal maftuuri ah oo mid Soomaaliyeed dan waa ka biirshay anigu Cabdiqaasim sida sheegtay qoyskiisa ay awood ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyo Shabeellada hoosaba meesha la aadayana iyada ay tahay run ahaantii already dagaal la sokeeyay oo muddo badan ka socday Caydiid waaba dhintay inuu dhalay yaaba markaa Xamar base ku lahaa oo villa Soomaaliya haysta Ali Mahdi markaa shirkuba nala jooga qolyahaanu meesha isku baranay anagu hore isuma noqon inaanu Cabdiqaasim u wada vooteyno aan ku wada tashano ahaa runtii anigu saasaan laakiin Cabdiqaasim markaaba Cabdiqaasim waa ka galgashay prime minister nimo haddana wuxuu yiri baarlamaanka ku shuqul leh baarlamaankii baa loo balankii macnaha inuu ka baxay oo siyaalo kale iyo cid kale marka meelahaasaba ay ka bilowdeen khilaafka iyagu kaaba baarlamaanka yaa waxay ahayn 257 waxuun 200 ku inay aniga taageertay
markaa sidaasaaba prime ministernimadaydu ay ku timi haddana waa muuqatay in xamar markaanu ku noqonnay run ahaantii aad iyo aadna dadka shacabka waa noo soo dhoweeyey muuse suudi oo kaftan badan baa wuxuu yidhi war nimankan sida loo soo dhowaynayo haddii ay bac noqdaanna waa bujinaynaa waa daloolinaynaa hadday bir noqdaanna dee waa uga baydhaynaa dee maamul iyo dawlad la keenay meesha oo aan kuumiya taana haysan oo cashuur qaadan karayn oo 5 warlood baa xaafadaha magaalada kala haysta runtii dhibaatay ahayd waa un ku dadaalay raggii qaarkood ninkii la odhan jiray qanyare iyo xuseen boodiyo waa heshiinay ninka la yidhaaho cismaan caatana waxbaa noo dhodhowaa unfortunately annaka khilaaf gudaha iyaga anigii cabdiqaasin iyo dawladdii yaa keentay inaanan dadkii wada kasban oo warlordskii ayna wada raacin kolley dawladday sababtu kolley khilaafka annaga gudaha iyaga ee madaxweynaha oo annaga waxaan isku haynay ugu weynaa oo ilaa maantana taagan dastuurka meesha yaalla awoodda fulinta waxaa iska leh xukuumadda yaa leh xukuumaddana baarlamaanka yaa ku ilaalinaya madaxweynahu howlaha uu leeyahay waa carifan yihiin waa kooban yihiin laakiin madaxweynihii ugu dambeeyey maxamed siyaad barruuha anigu taasaan aaminsana in prime minister waa awoodda leeyahay in xukuumadda awoodda leedahay in laakiin dee wada shaqayn tii aadan maxaad waaba odhan jira cabdiqaasin anigu aadan cabdilla cismaan ma noqonayo aadan cabdilla taasoo lama dhihi karo maadaama marka hore cabdiqaasin khilaaf idinka dhexeeyey si aad awood u hesho awood dheeraad ah oo madaxweynaha uunan kaaga tallaabo qaadi karin soo taa laguma fasiran karo markaas awooddaa raadinaysa maya awooddaan sheegayey ultimately baarlamaanka yaa awoodda leh oo vote of confidence kalsooni marka laala markuu doono yuu baarlamaanku kalsoonida ka qaadan karaa xukuumadda marka aniga iyo dawladda etoobiyana khilaaf weyn baabana dhex yaalla gedo ciidamada etoobiya jooga waxyaalo badan oo gabadhan hadda madaxweynaha etoobiya u ah yaa safiirka etoobiya ahayd jabuuti aad baan ugu dadaalay inaan xidhiidh yeedhanno oo markaan xamarba ku noqday waxaan aad ugu dadaalay annaga iyo etoobiya colaaddaa hore iyo dhibaatadaa hore in laga baxo oo danta guud ee labada dal iyo geeska afrikaba iyagu markaa etoobiyana waxaa u muuqatay cabdiqaasin inuu wadaadada yahay qolyahan cabdiqaasin annagaa isniqiinno markii kacaankana shuuciinta ugu waaweyn buu ahaa markan dambena qolyaha islaaxa iyo ikhwaanulmuslimiinka ku xidhan itixaadka iyuu xaggooda u janjeedhay baarlamaankana xoog bay qolyahaasi ku lahaayeen alaayi xaal kuma dheeraanayee noo jooga vote of confidence baarlamaanka dee waa ka dagaalami karay uma dhaceen laakiin anoo maqan yaa waxaa ishelay cabdiqaasin iyo dawladda etoobiya ninkii allah u naxariistay cabdilmajiid yaanu isku qabannay security councilka cabdilmajiid nin soomaaliyuu ahaa laakiin dee safiirka dawladda etoobiyuu ahaa annaguna waxaan isku haynay etoobiya ciidamadeeda gadi jooga inay meesha ka baxaan nimanka warlordska ah ee muusasuudi iyo ninka mancaate iyo la yidhaah inay naga joojiyaan hubkan ay ku soo daldanayaan iyo magaalada qaraxya ay ugu talagaleen goday baa laga soo rarayey baabuurta soo rarta iyo darhawallada iyo wuxuu yaduba haddana warkeeda waa haynay alaayi xaal cabdilmajiid meeshaan isku qabannay shirkaas oo dacwadda yaduba ahayd etoobiya waa inay dhulka yaga ka baxdaan cabdilmajiid markaa wuxuu rabaa arrin soomaaliya ay leedahay inuu soo dhex fadhiisto fargelin cad baaba jirtay ciidamada etoobiya isagu etoobiyadaa fog xidhiidh badanba lama lahayn laakiin niman kaabinetka aanu ku wada jirno iyo baarlamaanka yaa xidhiidh toosa la lahaa dawladda etoobiya dawladda etoobiyana iyadu markaa waxay u aragtay cabdiqaasinna markii horeba waa diidanaayeen
oo waxay u arkeen qolyahan culimada iyo wadaadadaas anigana waxay ii arkeen nin anti Ethiopiana oo dagaalka ku haya Cabdilmajiid meeshaan horanayna inaan isu naqinaybo waa qadarin badan aan u haya Cabdilmajiid laakiin nin Soomaaliya laakiin af Soomaali ku hadla laakiin arrimaha Soomaaliya faragelin uu leeyahay ciidan aanu leenahay geedan ma joogo marka adigii Cabdiqaasim si wada jira caqabad ay soo wajahday caqabada ugu weyn aan noo jeegnay waxay ahayd xitaa golaha wasaaradda dadkii ku jiray weli tii Maxamed Siyaad Barre la xusuusan yahay golihii wasaaradda qoladii aanu ku wada jirnay waqtiga ugu badan madaxtooyadayba joogaan hawshii halkanna wax lagu kontrolo lagu hayo budgetna uma hayo dhaqaale xoogaa yaroo dalka Imaaraadka iyo Sacuudiga yaa xoogaana si laakiin niman baa mushtara oo qaraabo ay yihiin Cabdiqaasim oo lacag ay soo sameeyo dadka ugu dhaqaale fiicnaa meesha yaa annaka hoteelkan deganahay kharashkayga iyo wax yaga bixiya amaah baan u qaadanaa marka dhibaatada ugu weyn waxay ahayd dhaqaale la'aan iyo inta yaree la hayo anigu aan u arkay prime ministerka iyo cabinetka budgetka sameynaya madaxtooyada budget baan u sameynay markaa madaxweynuhu markaa isagu wuxuu u arkaa oo ilaa 73 ama Maxamed Siyaad Barre wasiir buu ahaa ama heer wasiir buu xisbigu joogay nin aad habka lagu shaqeynayay u arkay inuu yahay ka sax ah oo saqiiro oo kabiira madaxweynuhu leeyahay ما دعن واي مدحتويدي marka inaad la wareegtaan caqabada ugu weyn maxay ahayd inaad la wareegayaan lama wareegi karaan madaxtooyadii Villa Soomaaliya madaxtooyadii run ahaantii tuhna way iska jireen madaxtooyada waxa haystay Xuseen Caydiid anaga iyo dawladda Djibouti ba waxay ahayd mudnaanta koowaad in madaxtooyadii ama wada hadal Xuseen uu ku dhiibo ama xoog waana lagaga saari karo xoog Cabdiqaasim baa diiday Cabdiqaasim xoogaa reer ahaan baa meesha tiilay marka isagu reer ahaan in habar gidir ama cayr iyo sacad dagaal dhex maro Cabdiqaasim uma arkayn inay xal tahay ma kuma raacsaneen anigu waxaan u qabay Xuseen Caydiid sida nimanka kale baa wada hadalkaan u galay oo ciidan badan iyo xooguba ku haysta madaxtooye ma jirin waxaan qabay in dagaal weyn iyo dhimasho badan iyo burburba kama yimaadeen in ama wada hadal iyo nabad uu meesha uga baxo ama xoog lagaga saaro Cabdiqaasimna 100% waxyaalaha aanu runtii aad iskaga hornimi ee arintaas ka mid ahay alaa xaal warka waaba ku dheeraadeen anaga iyo baarlamaanka aan xagaa ku maqan you vote of confidence كاني هذه ما كان في ليش إن بودكاست لكيندون يا إن بودكاست أنا أول عن كغبي وحنا سلها إلى هيركا Cabdiqaasim كم ديرناي لكن كنا ديري لكن سنأيد معمولكي مركا وحي جري نين مركا أي وده شغينا يا حسن أبشر أو وزير كابينتك يو برايم مينستر كدقة سنة بوتشوبي حسنا مركي دنبه وضع هذا الله يشترك السعودية نيروبي بعد محمد عبد يوسف برايم مينستر كدقة إساقينا دولة دي مركا جرتي يا كونفرنس كي جري انتو إسلهادو وحكررسو إسنا وحكوة شركة انبقاتي لغو غبتي وطرتمي إنو مدحوينو وطرتمي أنا فكر كي وحاي هاي شركة وحابا كان بربركا أنا نقد حموقدي هذي دولة دي هاي أو سيجرتو وهرو الله صعدو شركة الله ما وبعدين وحاي النقطي إن معارض يتوبي يكين international community جيلهان وين ليسوا ذي مادة وحنو هشيسيننا دولة يا معارض سدا سا شركة إنبقاتي اللي قلت لي ده Cabdiqaasim دوري طبعا عط يو هلاي إيشو كيف لي صوبوا زاري محمد عبد صوبوا إنه ما هو سببه هذا وحين يبقى بربرين
in markaa dawladba ayan jirin in wax markaa anigu waxaan qabaa inaan shirkaaba loo baahdeen oo waxa ay dawladdu markaa gacanta ku haysay waxna noo bilaabmeen qolyaha imaaraadka iyo sacuudiguna xoogaa dhaqaala waana siisiinayeen waxa noogu weynaa ciidamadan ay beeluhu iyo warlords kala leeyihiin in la qarameeyo taasaanuna gacanta ku hayna haddii ciidamadaa la qarameeyo dee cid muuse suudi oo kale dee gurigaan deganaa ama markaa raba inaan u guuro iyo xaafadduu joogo waa isu muuqannaa meeshaasuu xoogaa artiller uu naga garaacay guri nin ay qaraabo ahaayeen uu lahaa yuu degay anigu hoteelkii waxaan deganaa guriga meesha ramadaankaasaanu deganeen xukuumad xafiisyada iyo dee nin walba meel buu deganaa meel dhexe maya may ahan jir hoteellaa la deganaa guryaa la kiraystay shanshaniya loo degan yahay annaguna hoteelkaasaan deganay meelaha aanu joognay run ahaantii dee muuse suudi nagama fogeyn waa annaga laftayadu xaafadda sare ee dadka abgaalka lagu tilmaamaanu noo ahaa laakiin abuukar cumar caddaan nin isaga laftiisu awood ku leh meesha oo hoteelkana eriyada aan joognay awood buu isna ku lahaa cidaannu ka baqayno inayna soo weerartaa ma jirin cabdiqaasinna wuxuuba deganaa halkaa uu deganaana kolley cidihiisa kolley daduun isaga simbathetic u ah uu ku kalsoon yahay aagga ayana joogta calaa ayi xaal arrintaasu nasiib darro waagaa haddii wuxuun dhaqaalana la helo ilaahay caqli iyo xikmaduu nagu manaysto markaa waxay noqon lahayd meel hore looga sii socdo oo dhibaatooyinkan dambe ee dhacay iyo dawlad la'aan iyo waxa kan in lagaga hortegi lahay waayo markay aad go'aansateen qayb ka mid ah in xuseen ciidid xoog loo saaro madaxtooyada awoodda noocaas ku haleynayso ciidanka awoodda la ku qaadi karta xagee joogto maadaama idinka laftiin meelo kala duwan oo hoteello iyo deganadeen maya ciidamo waa haysanay oo laba warlord laba nin oo nala shaqaynayay oo ninka qanyare la yidhaahdo annaguna ninka qanyarana waa naga mid buu ahaa ninka boliiska xukuma cabdi qaybdiid labada ninna wixii meesha joogay warlords ama hogaama kooxye ama siyaasiyiin labada ninee runtii ugu karti badan ay ahaayeen labadan ninba waa hesheen oo cabdi qaybdiidna boliiska yaanba awooddaaba isagaaba noo qaabilsanaa maxamed ninka la yidhaahdo maxamed qanyarana waaba ciidankiisa iyo wixiisa wuxuu noqday ciidamadayadiibuu ka mid noqday marka ciidanka uu cabdi qaybdiid xukumo annagu iyo ciidamo cabdiqaasin u ah sympathetic ama taageerayaal wax iyagaa soo iswadanna waa ku aadnay ballankuna wuxuu ahaa bal madaxtooyadu inay bannaanaato qolyaha marka cabdiqaasin iyo taageerayaashiisna waxay balkan inoo dambeeyay muuse suudi horta marka hore ha la aado marka waxaa inoogu muuqatay muuse suudi xaafad buu joogaa kaaraan buu joogaa madiino qudhadeeda waa joogaa laakiin dhul isagaba marina meeshii mariinska ciidamadii baddu meel ay lahaayeen yuuba degan yahay oo joogay laakiin madaxtooyadii dee ninkanaa joogaa istaraatiijiyadda idin degnan ma waxay ahayd in marka hore hogaamiye kooxeed kastoo lagu day wada hadal haddii uu diidana la weeraro nacam muuse suudi laba arrimoodba waa jireen muuse suudi annaga waxay igu muuqatay wuuna ka awood badnaa arrintan qabiilka ah ee habargidur gudaheedana annaga iyo abgaal iskuma annaan haysa abgaalku waaba kuwa taageerayaashayada meesha aan degannahay abuukar cumar caddaani yuuba ahaa marka khilaafkaasu waa jiray marka waxaa tada xuseen ciidiid maadaama madaxtooyada gacanta ku asaga aan hormarino ciidan awood lana ma hayn lama hayn annagu taasaanu labadaba muuse suudi ciidan buu haystay qabiil dhan oo markaa awood buu lahaa oo ninka uguba awood badan warlordska markaa meesha joogay yuu ahaa
marka uma nambareeri Cumar Finish ka waran Cumar Finish dee Muuse Suudi la shaqaynayna oo xigiisa waqtiga laakiin Cumar Finish marka wada hadal baaba noo socda anagu isaga Madiina isagaaba gacanta ku haya Cumar Finish kan odaygii wuxuu degan yahay meeshii Liido ciidamadaas meeshaas uu degan yahay run ahaantii waa naga mahmahatay khilaafnaka gudaha iyaga iyo qorshe la'aan yaa nawiiqay dhaqaalaha waa laga soo kaban lahaa oo marka waxbaaba noo bilaabmay nimankan baaya mushtarka ana run ahaantii oo Cabdiqaasin raggiisa ana wax iyagana dantooda annaga dantooyadaan ku wada shaqaynayna oo ninka gudoomiyaha bangiga ka dhigay iyo nimanka lacagta soo sameynayay intuba qoyskiisa ay ahaayeen marka waxaan u malaynayaa waxay u muuqatay oo Muuse ku khudbayn jiray ninkan le prime minister baan ahay xamar viiso ku joogo horta waa inaan arkaa oo meeshii uu ka yimi anagaga noqdo marka anu way haystaa laakiin anna Muuse Suudi waa ogaaday inuu xagga iyo aadan yabal ka yimi marka saacad labadeenna viiso ku joogna ma waxaan anigu waa baxaya laakiin adna iga dambeyn mays marka nin kaftan badan mar dambaanu isbaranay oo hadal kaftan badan oo dood badan weeye ala ay xal arinta hore ilaa intaasay ahayd arintii aan u soo noqdo annaka iyo meeshii hadda wax marayaan way marka aadayna markaan xashaday doona xaqani qaatumo dhismaheedi ay ahayd dadkii ugu cadaa magaca ugu weyn ku lahaa madaxweyne ugu horeeyay qaatumo la doortay ma ahayd markii madaxweynaha lagu doortay qaatumo madaxweyne ka noqotay waxyaabihii ku qorsheysnaa muddadii ku qorsheysay ku dhaceen maya annaku runtii markaan arintan ka sheegno annaga dastuurka waxa noogu taala oo ilaa haddaba noo yaala wixii danta Khaatumo iyo danta Soomaaliyeed ah sidii la isu cunsayn lahaa dastuurka iyagay ka muuqataa in meeshii aan wada hadal iyo nabad ku gaari karno maamuladaas aan ku gaarno yaa noo yeelay run ahaantii magaalada Addis Ababa waa kula shirnay Siilaanyo intaana shirkaba aadin Siilaanyana waa kula shirnay ninka Cabdiraxmaan Faroolana waa kula shirnay nin madaxweyne ku xigihiisa soo reer Soomaaliya sanaaga Cabdisamed Cali Shire waa kula shirnay anigu Cabdisamedka iyo Faroolaha marka la shiray ma joogo laakiin ta Siilaanyaan fadhiya 2011 annagu markaa shirkana London baanu shir ku qabsanay dadkii runtii Soomaaliya sanaag yaaynu u dhashay waa iyagoo isku duuban yaanu shirka London ku qabanay ballanku wuxuu markaa ahaa inteena diasporada dibadaha joogta iyo iyagu wax iska dhoobdhoobanne in dadkii la raadiyo guddi 15 aanu u dirnay dalka inay tagaan tuulo kasta iyo magaalo kasta ku soo wareegaan 3 bilood waxay dadku qabaanna nagu soo warceliyaan waa nagu soo warceliyay waxaan go'aansanay talaxinaan shir ku qabanno marka waa shirka aanu dabayaaqada December iyo bilowga January aanu ku qabanayno dadkii 3 guddi baa loo sameeyay 3 guddiba Somaliland baynu wada hadal la galaa wax la yeelanaa Puntland baynu wax la yeelanaa meesheedaynu iska joognaayo wixii xamarka yimaadeen sugnaa dadkii overwhelmingly waxay yiraahdeen maya inta midna ma rabnaa maamul aynu inoo ku leenahay aan samaysano صح توار dadka fakarkoodi kaasoo ahaa marka dadkii aqlabiyada aad maamulisay dadkii baa qaadatay anagu dadka aqlabiyadoodii waa jireen siyaala laga yaabo dadka qaarkoodba kulli dadka qaarkood aniga igu tuumayeen inaan Somaliland u janjeero laakiin ilaa hortii Somaliland iyo Puntland aniga ima kala xigin aniga waxa aniga inoo qorshaysnaa oo aniga fikiraan qabay tii ogolaata danta dadka iyo in wax la wada yeesho iyo waxa ay yeelan karaan waxa horeysay
Somaliland marka ku fikirtay mid weydiis maadaama wasaaradda Soomaaliya soo martay inay damage iman karo dhaawac laakiin damage kaniga waxa igala weyn aniga tayda ma aha maxaa dadka danta aniga igala weyn dadkana halkay ku nool yihiin lagamana rarayo haddii aan nabad lagula noolaana iyakoo qabiilo horeba qabaaylaan isu dilaynay iyakoo maamula dagaal la socdaan oo iyakoo maamul ahaan iyo qabiil ahaan yaa dadkii la dhul durugsi iyo wixii bay inay xoog ku qabsadaan laascaanood bay qabsadeen magaalada Buuhoodlay dhowr jeer soo weerareen kuma ay guulaysan cid ku soo hiilanaysa ma ay jirto midna iskuma haleynaysa tol marka dhibaatada marka la yiraahdo dadkan waa khilaaf oo waxba ma dhis waraay meel kale maamul kale oo la dhisay oo laba maamul oo ka soo horjeeda dhexdooda ku jira ma ay jirin hada galmudug oo kale dastuurku wuxuu qorayaa waxa maamul noqon kara laba gobol iyo wixii ka badan galmudug ma ahayn laba gobol laakiin dawladdii dhexe yaa ku dhiiratay oo kharash gelisay oo u soo joogsatay annaga taayadii tii midnimo Soomaaliyeed aan u dhimanaynayna xamar la aqoonsan waa oo waliba si qayaxan dawataan ku sheegay xasan baaba ugu horreeyay Somaliland iyo Puntland waqti badan oo badan baan Puntland galinay oo dhab ah annagoo Soomaalinimadii iyo 4.5 ba ilaalinayna oo dadku shalay ma dhalanay waa leeyahay inkastoo aan waligeey maamul wada noqon annaka iyo qolyahaas haddana in badan oo iyaka ana asxaab waaba ahayn waxaana dhab oo horeysay gurubkii odayaasha ahaa ee wax ka sameeyay Somaliland ee shirkii Burco iyo kii Boormaba midkii 1993 tagay oo garaad Cabdiqani uu ka koowaha way isqabteen Maxamed Ibrahim Cigaal iyo Somaliland waxa la isku qabtay ugu weynaana awood qaybsiga yahay waxyaalaha ay isku badiideen ugu darayna waxay ahayd xildhibaanada la dooranayo aniga oo Cabdiqani iyo garaadadayadan annaga naqaasaan waxay ugu qaybsanaynaa mas'uuliyadayda waa inaan yeelana Maxamed Ibrahim Cigaal wuxuu yiri adiga qoyskaaga mid ama laba xildhibaan waa soo magacaabi karta Cabdiqani waa markaa waa 98 markaasuu aaday garowatigi markaa weeye iyagoo qolyahaas aan ba heshiis baahayn oo maamul dhisan kari waayeen qolyihiis soo daf markii garaadka Sooliya Sanaag iyo kuwa qolyaha khaasatan reer Laas Qorayba ay meeshii tageen cidda runtii pushka ama riixida ugu weyn keentay inay Puntland dhisantoba waxay ahayd wufuudda Sooliya Sanaag iyo Cayn ma akhir ka yimi marka rashmiga guud qayban kan hadlay qayb kama baahayna iyagaaba dhisay laano warku inuu cadaada fiican about dhowr bilood ka hor qardhay ku shireen soo daf saddex nin baa qofba uu watay Maxamuud Saleebaan ninkii la oran jiray Maxamed Abshir Muuse Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allah naxariiste iyo ninka la yiraahdo muxuu ahaa Kinkon oo ina boqorada ahaa Ismaan Maxamuud Saleebaan ku taasay isku hayay waa ogolaan waaye qardha haday isugu tageen compromise waxay baydheen warbal Cabdirasaaq intaynu meel ka gaadhayno haynoo sii hayo marka waa Cabdilaahi Yuusuf Kinkon iyo Maxamed Abshir waxa isaya Cabdilaahi Yuusuf markuu maqlay Cabdirasaaq waxba la dagaal baa ma ka xigayaa buu yiri Cabdirasaaqna ma batagi karo gaalkaayo tee meesha ana leh Cabdirasaaq waa ninka retire garoobay prime minister wuxuu ana u soo dagaalamay oo u soo rafaaday oo kaadidayda u soo cabay taasa la isku hayay waa la ismari waayay shirar badanna waa qabteen wadanka gudihiisa iyo dibadiisa haddaan wufuudan u tagin especially garaadada sool ka timi weligeed ma dhisanteen Puntland maaha waa ka qayb galay ee sababta ilaahay ay ugu suurtooday iyo kaalaha ka bacdina waxaan marka dambe meesha ku arkayno waska kulay maamul
qabali ah maamulka qabaligana wuxuu ku ekaadaa marba ninka meesha jooga ninka marka hadda Cabdullaahi qayb ka ahaa inay kala qaybsamaan soo sanaagii aynay Puntland in ay marka dambe la kala qaybsamo oo laga ogolaan waaye waxaaba dawladdiisii loo bixiyay madax ka noolku waa baabuur Japanese oo aan buudi weyn lahayn wax badan lagu qaadi karo madaxay marka isagu marba geedka uu hoos fadhiyo yaa dawladdii tahay wuxuu doonana ku kacayo dhibaato badanna waa lagala kulmay noohantii waana xanuunkiisa iyo intii waa ma caafimaadkiisuna ma fiicnayn oo tibeerkii laga bedbedelayay alaa xal arintaas annana waqti badan baan gelinay iga rumayso priority inaanu iyaka ku bilowno oo waliba Ali Ciise Cabdi oo door weyn ku lahaa dhismaha Khaatumo oo dhan hadda sabab ilaa hadda joogo institute eesha uu madax ka yahay aad buu ugu dhaganaa inaan Puntland wuxuu aad isugu haleynayay Cabdiweli oo ay saaxiibaan reer Washington DC isla ahaayeen in aan laga quusan taasuu aad ugu dhaganaa waqti badan baan gelinay laakiin Faroole iyo isaga iyo ka hadda jooga midkoodna waxaan ahayn aan kugu shirtago waa xamar markaan tago aan noqdo ana intan oo dhan iga tirsan yihiin wixii aan xamar ka rabo marka waa inaan ka helaa ama prime minister ama madaxweyne waa salaan dadka meesha jooga dadun loo isticmaalayo wax meesha yaala Puntland la sheegaysa meesha ku murmaysa wax on the ground maamul jiro oo Puntland leedahay ma arkaysid ciidamo ay leeyihiin ma ay jiraan haddana meesha waxa quray ku haystaan waa uun xildhibaanada marka la dooranayo iyaga magacawda xildhibaanadii dadka loogu talagalay 3 sano bay ahaydeen yeeshaano mid iyakaaba markii horeba la tagay markii horena iyaga magacaabay haddadanna waxyaalaha farmaajo uu leeyahay waa su'aal adag wuxuu ka ogolaaday Siciidani inuu haddana isagu soo magacaabo wuxuu uga jawaabi waayay laano concessionka ina danina waxa ugu weyn oo xamar ka rabaa waa in uu noqdo sanadka iyo house-kaba dadka loo magacaabayo ee maakhir inuu isagu personally inuu personally isagu Puntland laga hadlo marka isagu cod u helo isagii hadhowto dee wuxuu noqonayaa nin la yimaada inuu yiraahdo anaaba istaahinaana madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo awoodiisa yaa dee muuqanaysa haddana wuxuuba ku darsaday Jubaland oo alliance-ka dani wuxuu dhishayaa qaabka wuxuu ku noqon lahaa istiraatiijiyadii uu ka shaqeeyaa isaga iyo ina Faroole iyo Cabdiweli prime minister wuu ahaa ina farmaajahana prime ministernimada sabab uu ahaa inuu markii horena wasiir ka dhigo markii dambena prime ministernimada markii Kampala la isku qabtay ee raba inuu isaga iyo Faroole iyo Cabdiweli intuba waxay ay kuuriga ugu jiraan nin walba inuu xamar ama number 1 ka noqdo ama number 2 inuu madaxweyne noqdo ama prime minister noqdo la'aanta sool iyo sanaag maakhir ma hawaysan karo hadda hadiiba alliance iyo tol siyaasadeed Jubaland ka helayna dee wuxuu leeyahay muuqatana waabatay ka hor yimaadeen ina farmaajo iyo cilmigan oo la waday 3 gobol waaba takhasab ay noqdo heshiiska ay galeen horta koow wixii wax lagu dhoobdhoobi karo 100% waa la jiraa laakiin haddana xal ma noqonayo oo haddadan aan joogno soo maanta salaasama ma hubno wiika bacdi waxa ay ku heshiiyeen inuu haddana sii soconayo laano marba nin cadhooday oo isagu dan qaran iyo dan maaragtay xitaa meesha uu ka hadlayo aan ka hadlayna dan uu personally isagu rabo dee danaha iska hor imanaya oo dee waxay noqonaysaa Soomaalida inta waxay u badan danaha xooga saaraya danaha anigu wixii lagu heshiiyaba hadday noqonayaan wax inoo midho dhalaya
boqolkiiba boqol waa taageersana in meeshaasu ay degto oo adduun weynaha mithaal baynu ka nahay marka laga hadlayo failed state ama dawlad burburtay oo wixiiba meesha ka baxday Soomaaliya ka koowa magaca adiga ma laga yaabaa inaad soo sharaxdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya maya anigu waxaan siyaasadeedoo dambe igu hadhay da'baanahay Geeska Afrikana wax badan oo fursadaha hadda ka muuqda oo siyaalo badan oo taariikhdu waxyaalaha horeynan arki jirin baa inoo muuqda Itoobiya lafteedii baa gilgilanaysa dadka hadda aaganaan joognay maamulkan Soomaaliyeed oo haddaba ayba tahay meesha qureen nabad iyo xasilooni ka muuqato waxaan cali ahaan qabaa Soomaali isu timaada door weyn buu ku leeyahay dadka dhulkan degan iyo dadka waqooyiga degan labada meelood meel ficil iyo xamaasad iyo shacabka ah oo Soomaali la isla raadiyo hadda Hargeysa iyo Jigjiga meel aan ahayn kama bilaabmayaan haddii Soomaaliland madaxweynaha la siiyo caasimadda Hargeysa laga dhigaa qolata inay midoobi karaan labada wallaahi la islaba soo qaad sidaan maqlayo laakiin bahasha ku soo boodada laga fiican nimankanu dagaal bay galeen gariya gardaraba dadkoodana waxbay ku kiciyeen waqti qaadanaysa wixii in fahamka dadka lagu noqdo oo si dhaba wax looga dhaadhiciyo oo loo tuso danta ay hadda intay haystaan inay u fiican tahay in ay mid weyn ka mid noqdaan iyaku oo ay leadershipka la rabo haday madaxweyne iyo caasimadiiba la siiyo laakiin laba nin oo qol madow isku xidhay arinta ma go'aamin karaan dadkana waa lagu beeray nacayb koonfur waa lagu beeray waa layna xasuuqay waa lagu beeray qabiil ahaan baa leynoo laayay waa lagu beeray wax rajo oo aynu ka leenahay meesha ma jiro yaa ku beeray leadershipka SNM baa ku beertay SNM waxay of course iyakuna waxay dagaal ku galaan bay rabeen haddaadan dadkaaga adaa yaqaana aadan jahayn karin oo wuxuu la qiimeyn oo tilmaamaynin halkanba oo analaf lagu dabamari karaa maahe dhibaatooyinka hadda Somaliland gudaheeda ku jira umaba gelayno laakiin waxay macna ku yeelan karaan oo iyaka laftoodu isku duubnaan karaan hadday wax Somaliland ka weyn ka mid yihiin oo danaha ay leeyihiin iyaka oo ay soo jeedaan oo ilaahay aqli iyo xikmad haynagu wada manaystee ay xisaabtamayaan inay waxay diideen iyo waxay gol yihiin laakiin madaxweyne ku doonayaba ha noqdeen wada hadal rasmi ah oo kala leh heerar kala gooniya oo bahasho hadday tartiib u bilaabanto la isla ogolaado wada hadalkan wixii ka soo wada baxa aan sugno laakiin haddii laba madaxweyne ay ku sii isla soo qaadi karaan waa meesheeda waayo siyaasiyiinta inta badan hadda waxa kulmo siyaasiyiinta shirka ugu dambeeyay hadda madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale waqti uu hogaaminayay madaxweyne Musabixi Shalom Dhekar laftooda Farmaajo wuxuu ka cabsanayaa in wadanka hadii la kala qaybin lahaa Soomaaliland taraf rasiin lahaa wuxuu ka cabsanayaa shacabka Muqdisho iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed koonfureed Musabixi laftiisana shil lamid ah inuu shacabka Soomaaliland sidaa sheegtay SNM inay ka dhaadhiciyaan in dadkan la xasuuqay inay Soomaaliya la midoobaan inay dadkan rabin labada dhinac soo muuqato siyaasiyiinta hay siyaasadii hadday taatay si fiican baad u dhigtay soo in la faguro oo si tartiiba oo hadday noqonayso technical committees hadday noqonayso wixii Soomaaliya arrimaheeda danaynaya oo si kalsooniya looga wada shaqeeyo laakiin nin safiira ama laba madaxweyne yaa yiri wixii maanta ka dambeeya amankan iska shumaynayna waa isu soo boodnay ma shaqaynayso xisbiyadii laftooda culays bay war xisbiyadii iyo shacabkii iyo saxaafadii iyo waxaan in la bisleeyo weey in la bisleeyo yaa loo baahan halka ugu dhow wuxuu noqon karaa waxyaalaha hadaba lagu turtuurayo ee hadaba waxyaalaha la sheegayo waxa la yiri madaxweyne inuu noqdo qof waqooyiga laga doorto inuu madaxweyne noqdo waqooyi kala maahe waliya reer Sheekh Saxaaq qof laga doortay inuu noqdo laakiin laba team ama saddex team baa la isku hayaa
ma 8 sano ay noqono waa 2 term mise 12 bay noqonaysaa waa 3 term yaa laga doodayay de waxaas waa quudan jiran qoryo u goro waa arrin aan la bislayn oo in la yiraahdo madaxweyne hadda lagaba murmo imsa jeeru madaxweyne ama isagu ama kuwaas oo ahaanaya waxa ka horeysa inta ma maqasho la gaarin war wixii waxna aan qalana mindiyahana qarsana laga fiican dadkan qanxin buu u baahan yahay kuwa xamar jooga iyo kuwa halka joogaaba in badan oo xamar joogta war Soomaaliland iyo warkoodan jaqjaqadoo naga dhaafa waa aqaana waa jirta kuwa halkan joogoon leenaka iyo koonfurayso ma iman karno laakiin haddana waxaan ogahay labada dhinacba xidhiidho hoose oo ka dhaxeeya oo qoliyo Soomaaliland oo xamar dawladnimo iyo qarannimadaas maahe qabaa'ilka qaarkood ama xisbiyada qaarkood ku xidhan oo kala doodaya oo siyaalo u arka wada shaqayntoodu inay danahooda ku jirto kuwa xagga joogaana kuwa laftoodu in badan oo hadda booramadan iyo khaasatan Hargeysa xaasaskoodii kuwa ugu magac dheer xaasaskoodii iyo reerahoodii wuxuu ay u joogaan haddaba bahasha dhuumaalaysiga laga fiican intaan Soomaalidu midhaynayada sagaaradu inaga fiican waxaan qarsoomayn bay qaraysaa intay meel ku kaadido ama ku xaarto ciid iyadaaba toilet training inaga fiican inagu waxba hadii baadiyaha la joogo banka loo baxo waxba lama qar macnaha inay isku yimaadaan si rasmi ah loo hadlo wixiina la dhiso wixiina foundation uu yeesho asaas inuu yeesho waqti bay qaadanaysaa dadkana loo bisleeyo la qanciyo waan qabaa dadka reer waqooyigu waa la qancin karaa anigu wataan xalay ahaan qabo waa la qancin karaa waxa dantoodu ku jirto iyaga oo soo jeeda oo xisaabtamaya waa la qancin karaa laakiin bahal la dhuundhuumanayo in shaki sii galo iyo nacayb mooyee waa in la sii kala fogaado mooyee waxay ku imanayso wanaagii ma wajiro wax natiijo ka soo baxaya laana waa ognahay farmaajo iyo abi iyo musabixi February waxay ku kulmeen Addis Ababa waxbaaba hadal baaba bilaabmay ka bacdina waabtii Djibouti la isugu yimi khudbadii la akhriyayna waa maqlaynay waxa la leeyahay waa la isla soo dhaweeyay ee bulshada qoliyahan international community-guna ay dhinacyada hayaan ay wadwadana waa maqlaynaa wixii la isuma keenayo marka run ahaantii opportunity waa muuqdaa laakiin si degan oo xikmadaysan in looga doodo oo loo la faguro oo iyada oo la miir qabo wixii lagu heshiinayay marka lagu heshiiyo waayahay doorkiina idinka dhaqaatimatiin naam doorka iyagu wuxuu yahay annagu Soomaaliland dhul ahaan waa nahay taariikh ahaanna waa nahay laakiin haddana qabaa'il baanu nahay qabaa'il ingiriisku wada xukumi jiray waxaan la ogeyn dadka Soomaaliya Sanaag u dhashay ingiriiska heshiis lama gelin dagaalkii Maxamed Cabdulla Xasan yumbay dhulka ku soo galay qabaa'ilka kale sayla ilaa laga gaaro ceelaayo qabiil walba oo degani oo reer Sheekh Saxaaq iyo Warsangeli heshiisiyay la saxeexdeen waxa kale xuduud caadiga ingiriisku sameeyay xuduudka caadiga iyo degmooyinkan iyo sidan wuxuu jireen nimankan waana leesiyay dhulkana waa la wada degaa sida Puntland macnaha ay u tahay Puntland ayaa dhulhaan idinka Soomaaliland u tahay Puntland mar walba koonfur bay ahayd mar walba Talyaanigi baa xukumay annagu mar walba waqooyigan raas annaga iyo Puntland mudayar oo nugaal gobol nugaal la yiraahdo la sameeyay oo aan badnayn sanad xitaa ahayn yaani waliga maamul wada noqon haddaba midda meesha taala ee qoliyahana aan anugu ugu imi maamulkii hore meesha joogay madaxweynihii hore joogay heshiis baanu galay muddo 3 sano ah yaanu wadanka dibadiisa isku arkaynay Addis Ababa Djibouti Nairobi Imaaraat heshiis baanu October 20-keedii 2019 ku galay Aynawa heshiisku waa
whatsapp youtube-kana waa ku jira heshiiskaasi waxay ahayd kow somalilan la wada leeyahay inaanu dhisno marka somalilan la wada leeyahay oo haddii ictiraaf raadinaysana la wada raadiyo haddii gooni lahaanaya gooni la ahaado yaad ku heshiiseen waxaanu ku heshiinay exactly somalilan ama wax la wada leeyahay oo cidina marti ayan ahayn cidina magan ahayn waa in la wada dhisaa heshiiskuna taasaa noogu taalla heshiiska waxaa noogu yaal waxba waxa qure ka dhaqan galay waa laba arrimood kow colaad baa jirto de waa isdilayna oo ciidamadooda iyo annaka ciidanka iyaga khaatumo oo dee shacabku leeyihiin reer khaatumo leeyihiin yaa la dagaalamay dee waxaan isku haynay dhulka iyaga annaka ale ciidamadiinuna hanaga baxeen dhulka iyagana inaanu xoraysanaanu rabnaa inta laga dhaqangelinayo aan kala joogna adoo jeedaa maya heshiiska waxaaba loo galo looga dooday nabad aan isugu nimaadno oo wada hadallo oo waxaynu wada leenahay aynu dhisanno heshiisku waa kaas waayo laakiin mar haddii aad maamulka ka mid noqonaysaan ciidamada laftooda in la qarameeyo maadaama ay u baahan yihiin dee taas waa arrimaha detailska loo gelayo arrimaha noogu yaalla meesha dastuurka in la furo waxaan la leeyahay hadda baarlamaan baa laga hadlayaa baysku waxaa la yidhi 1960 buu noqonayaa 60kii heshiiska dhamaystirna macnaha la jeedaa heshiiska in la dhaqan geliyo kadib marka wixii kale ciidamada in la qarameeyo ciidamada tan iminka somalilan miisaanka weyn ku ah ciidamo beeleed yaa dhulkaa jooga la caagaystay ilaa 6800 oo ciidana yaa la leeyahay baa sooliya sanaag somalilan mushahar siisaa hadda xiriirka somalilan idinka waa sidee xiriirka somalilan waxna waa noo bilaabmeen kuma aanana kala kicin waxaana ku rajo weynahay inay iyakana dantooda ku jirto annana ku jirto heshiiskaasu inuu hirgalo hadduu hirgeli waayo dee muusa bidiino ciisa bidiino waa la iska kala tegaya waxaanu ku heshiinay oo aan anigu cali ahaan oo khaatumo matala aan hargeyso ku joogayo haddaanan ku heshiina ma jirto waxa uun meesha taalla meelaha iyakana waa ku idhaahaa soomaalidu waagii hore waana la dagaalami jiray xikmad iyo gabay iyo wax baa la isu marin jiray gabay horaa jiray oo qolyo aaggaasa reer buuhoodla ah iyo qolyahaas markaa dagaalla iyo wax ka dhaxeeyey qolyo garga'aa timi oo xaggaa ka timi sidii ay filayeen in loo soo dhoweeyo looma soo dhoweyn nin markaa gabayaaba meesha joogay yaa yidhi midhin ka hortag intay nimanku ama gabyi lahaayeen ama iska tegi lahaayeen yuu gabi tiriye uu leeyahay 3 cashaba waa intii sahanku laalaaye waa soo sidnaa xeedhiyii hisaabka loo talaye ii doorsal fududa wuxuu sugaya muu dhowro anigu waxaan is waroy gabarkaasaa la odhan doonaa ninkii khaatumo meesha u joogay waa sal fududaaday oo wixii oo lagaba shaqaynayo yuu ka dhaqaaqay dee hadda 3 sanaan joogaa meesha hadda cidina ay odhan mayso waad sal fududaad haddii dowladda soomaaliya ay maamul goboleed u aqoonsato sool sanaag iyo cayn xalka ugu dhow maya weligeed xamar kama suurtoobayso dowlad soomaaliyeed oo arrintaa ku dhiiranaysa sababtana waa kuu sheegaya xamar baarlamaan baa jira puntland xildhibaanadan meesha joogaya waxaanay urursatay baarlamaankay ku jiraan kaabinadkii bay ku jiraan sanadkii bay ku jiraan qolyahan reer sheekh saxaaq ama dir waqooyi iyana xildhibaanay leeyihiin iyaga keligood baaba dhowr kontomeeye leh labada qolo midna ka suurtoobi maysa inay ka oggolaadaan maamul xamar joogaa in maamul loo dhiso sooliya sanaag yahay shacabka xamar joogaana dad u dagaalamaya oo iyo miidiyada meesha midnimo Soomaaliyeed iyo dadkanu kan iyo kaasi waxaasay istaahilaan marna ka suurtoobi mayso waxa hortaagan in maamul goboleed gooni loo aqoonsado waxa hortaagan Somaliland iyo Puntland marka Puntland hadda waxay ka soo tarsadeen ognahay Soomaaliya sidaa sheegtay waxaa tiri maadaama ay rabaan inay kontrolaan kuraasta marka idin laftiin inaa guddi madax bannaan oo arrintiin xaqii ka maqnaa inay u raadiyaan dowladda federaalka iyo caalamka dee hadda ilaa markii maamulkan la sameeyey waa 8 sano moogta
2012 January waa 8 sano waxba iskama aanan hakranayn laakiin waxa meesha yaala cid arinta ku taageerta dadkan ama qabiil ha ahaadeen ama dad leh xuquuqda wartay dadkan inta idinku baleedihiin reer Sheekh Saxaaq Soomaaliyeed waxaanu xamar uga goosanayna danahayagii baan ku dhaxarki weyne anagana maxaa naga horjoogeynaa danahayagii baan idinka dhaxarki weyne yaa kugu taageeray marka kaliya meesha dantiina ka dhaxarkeysaan ayaa diyaarootiin marba ka mid ahaataan annaku waxaan labadu kama maqnin annaku waxaan qabaa first step talaabada hore inay noqon lahayd annaga iyo Soomaaliland waxaan wada leenahay marka annaku miir qabna waxaan u qabaa in Soomaaliland la wada leeyahay ay noqon karto meel laga raadiyo Soomaali dib loo raadiyo haddii Soomaaliland ay ka mid noqon lahayd Soomaaliya si rasmi ah maamulka kadib hadda u ogolaan lahayn inay Soomaaliya ay ka mid noqdaan Soomaaliya sanadii ay heli lahayn cadaalad ku tahay Somaliland iyadoo iskaba socota iyagaan bahadwatayna hore uga hadalay iyagaan barrabin in Somaliland ay ku biiraan annaga ay Soomaaliya ka soo qaadeen ka mid yihiin aan ka hadlayna caqabadaha hortaagan Soomaaliya hadda Puntland Somaliland hortaagan haddii maadaama dhulka hadda Somaliland ay maamusho haddii Somaliland ay ogolaan lahayd nidaam isla ogolyahay in Soomaaliya ay ka mid noqdaan ama la midoobo ma asleeda culeyska hadda Soomaaliya sanadii ay saar muqadiga tamay marka annaku waa arintu inta waaba ka sahlanaanaysa haddii Soomaaliya marka laga wada mid noqdo Soomaaliya weyntaasana wax la qabnaa marka muranba meesha ma yaalo laakiin ujeedadiina Soomaal goboleed ma heen maamul gooni noqotaan annaku waxaanu maamul gooni ku noqonaynaa marka ay labadan maamulna hortaagan yihiin xamarna ay waxba noo hayn markaasaan rabnaa maamul gooni natacaamil maca shaytaan marka وحلال وحي أنا دنا هيجان كوجارين. أنا إلا حتى هذا دكتور الشيطان قال تعب مشان وجده. صح وحنقول شيءنا اللي نقوله البدني هذي كيف فكر يساعد. ماشي الله على ماشي تدك يجو كوبة بعديان هذا Soomaaliya aan ba fiicnayn ama Somaliland baan fiicnayn wax badan oo yaa waliba laga sii liitaa waxaanu haday sii socdaana waa ka sii darayaan hadaan hadda wax laga qabanna midda qure ay noqon doontaa oo aan haraynin dadka mar walba waxa u furanay waa inay dagaal ka xigaan hadii laga gudbo maamul goboleed oo loo gudbo nidaam xisbiga doorashada iyo qof la gaaro Soomaaliya sharci aan tan muta yaa gaarsiinaya deeta hadii sharaxan dawladda Soomaaliya ay gaarto qof iyo cod in la doorto oo maamul goboleed meesha ka baxaan oo awoodii maamul goboleedka meesha ka baxdo qof walba codkii fawd soo baxayo taas waaba inta la rabay laakiin intaan nool ahay taasaan markaynu waaqaca dhabta ka hadalno markaan hadda ka hadalno ahzaab saa u dhisanna ma jirto waxayna qabiilun baa lagu meereysanayaa waa qabaa'il markaynu doonana qabiilka waxaynu aragnaa wax jaahilnimo iyo maaragtay sidii ibn aadanku u soo bilaabmay muxuu ahaa meelihii ugu horeeyay meelahay la soo maray gaaladu ama taariikhda marka laga hadlayo waxa ibn aadanku wax ku bilaabay ama inay xoolaha u gaarsadaan ama inay wild fruits birta ilaahay waxa ka baxay cunaan markaasay haddana aadeen inay wax beertaan markaasay haddana warshado iyo waxa saasi u socdaan innaku Soomaali haddaan nahay taa horaan wali joognaa oo qabaa'il ah oo haddana qabiilkii marna waa laga yaxyaxayaa haddana waxa qure ku socdaa oo aan meel ku joogsanayn oo aan horumar badan lahayn waa taa qabiilka arinta oo marka anaga iyo Somaliland haddii aanan heshiin aniga dad baa mas'uuliyadii dhiibtay madaxweyne aan u ahay waxa waajibkaygu yahay iyaka intaan ku noqdo inaan idhaaho wixii aan ku maqnaa suurtoobi waayay laakiin haddana waxaan rabaa laabta cid ii garaacaysa ma jirto xamarna waxba kuma maqnaa Puntlandna kuma maqnaa in waaqi markaa uu noqdo inta midna kama haynee maxaa inoo dana in dib loogu noqdo shirweyne la isugu tago isaga laftiis dadkan intooda badani tusbax bay wataan abtirsiina laakiin wax loogu hayo
oo Puntland iyo xamar ugu haysaa ma jirto halkanna iyaga qudhadoodu dadka xooggiisu dadku ilaa Ceergaabo ilaa Danood iyo Wardheer iyo daadsan yahay halkan qudhadeedana wadaadkii muxuu yidhi tayday cuslaysay maxaan tarin inay cawday idinka laftiinni yaa deer raba wixiina inaad dhistaan laakiin anigu waxaan qabaa wixii halkan aad ka dhistaan iyo wixii Itoobiya ay ku dambaysa inay noqonaysa inay aad u taabanayso waxay Soomaaliya ku dambayn doonto waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaare cusub wasaare cusub muxuu soo kordhin karaa leedahay maxaad ka taqaanaa wallahi inaan personally aqaano ma aha waxa quru soo kordhinaya qoliyahan farmaajo ku kacsanaa ee magac qabiil ugu kacsanaa horta waa ka kala degayaan oo nin reer Galmuduga yaa la magacaabay awal tolis ururiyay oo guud baa jiray kii inta la filayayba kulli waa lagu kala hadhay waaba laga yaabaa markaa intii muddo ah inuu fursad u helo in uu wax ku dhiso doorashadana kulli doorashadii nimankii ugu qaylad badnaa lahayd doorashada saacad dib looma dhigayo yaa hadda waxay leeyihiin technically waxa ma suurtoobaya November baanu qabanqaabadeedii galaynaa oo doorashadii February baa la qabanaya kuma suurto even hadday noqoto one person one vote qorshayaasha farmaajo hirgal karaan qorshii farmaajo ee qofku fardi qof walba inuu cod leeyahayna meesha ka baxday doorashadii wixii ay iyagu ku dagaalamayeen dib ha loo dhigay isagaaba ogolaaday haddana iyakii baa leh technically ma suurtoobayso marka waa la isla jala butaynayaa meel ay salka dhugi doonto ma naqaano laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bal waxa ay ku sii heshiiyaan oo wax ku sii wadaan oo doorasho kulli waxaan anigu qabaa ugu yaraan sanad dambay qaadanaysaa ninkan prime ministerka ana isaga qudhadiisaaba waqti u baahan uu isku tuso nin wax qaban kara qoflanta muddada u hadhay tamay hadda waaba doorasho loo dareerayaaba hadda November yaaba axsaabti inkastoo la dhigay xisbiyadii waa laga tagay wadana indirect waxay noqonaysaa intii hore 4.5 la aado hadana 4.5 laftiisi yaan heshiis lagu ahayn oo sidee yaa qabanaya wali waa la isku haystaa waaba la sheegay meeshii la lahaa sanadka hadda waxaaba magacaabaya nimanka gobolada maamula ayaa jooga madaxweynayaashaasa sanadka wuxuu maamulay marka aad la kulanto siyaasiyiinta Soomaaliland ama siyaasiyiinta kale ee Soomaaliya ma kugu yaraan magaca madaxweynaha qaatumo dad diidaya oo odhanaya Soomaaliland madaxweyne quray leedahayna waa jira laakiin madaxweyne Soomaaliland kama hadlayno anagu organization baana organization ku gudoomiyay madaxweyne waa yeelanaya laakiin waxaan waxba garan yay dhibaysaa madaxweyne aniga qudhataydu nimanaad rabto inaad garcada uga gashaan in iyadan balaysu iman ay dhan isu gurfiyaan oo yiraahaan waxaygii baaba lagu murmaya aniga qudhadaaba uga turaya hadayba laga badaynayo anaaba la balwaatay anigu tayda jeebka aan bagashanaya waxaan aynu laakiin ku wada hadlaynaa haddaadan ogolaan heshiiska wax laala waxaan sunnahay ma jirto inaad ka tunasho macnaha in lagu yeero madaxweyne haddii dadkaada ugu jirto dad diyaar u tahay madaxweyne lagu yeero macnaha igu fadhidaa ma jirto dad baan ka wakiilahay inkasta oo halkan aan joogo iyo meesha aan ka imi boqolo walba ay leeyihiin war ninku waaba nin wuxuu ahaa loo hanweynaaye maxaa u geeyey Hargeysa maxaa geeyey adeer danta Hargeysa waxa igu maqaalaa waxa jiray sheeko nin geeliisi lumay markaas isagii wiil dhalay baa geeli raadiyay waa kaliilo waqti kulul wiilkii baa yidhi alla aabo meeshaynu maraynaa kulula aaba geelini baa mareebi wiil waxaan u joogaa oo igeeyay waa danta ummadaas anigu hadday tayada cali tahay laba wiig ma joogin laano danahayga kale iyo waxay kala qabsanayaan yaa iga muhiimsanaan la laakiin yaan waxba bilaash la isu akhriin dagaalan cidna ka dhab ahayna
yuusan annakana gelin nimankaa haddaannu nabad wax ku helaynana waa daba jooga hadday noqoto oo shacabka iyo waxgaradka iyo culamaa'udiin iyo baayamush wax arrintaa diida anigu ma hayo laakiin maamulka iyo go'aanka ciddii lahayd arrinta waxaad mooddaa inayan weli ogolaan oo aan diyaar u nahayn waayo waxaa tahay ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dowladda hadda haatan madaxweyne farmaajo ka dhashan dowladda Soomaaliya waxaa tahay ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey in ra-iisul wasaare lagu yeero soo arkaa mayta ra-iisul wasaare waxa aan ahaa haddii laygu yeedho taas waa waxaan soo maray dee qofka intiisa in loo qiro yaa habboon ninku hadduu safiir ahaa haddii uu madaxweyne ahaa hadduu wasiir ahaa wuxuu doonayaba ha noqdo madaxweyne uu ahaa in waa xilqaan waa asluub maaragta mudana waxaa tahay siyaasi aqoon-yahan maxay kula tahay xalka Soomaaliya haatan ee ugu dhow maxay noqon kartaa wallaahi halka Soomaaliya ee ugu dhow aniga waxay igu muuqataa in siyaalahan hadda wax lagu dooranayaa haddaan lagu barxin shacabku waxa uu rabo iyo haddaan axsaab la samayn arrinta waxay una noqonaysaa ila meerayso oo weligeed taasaa lagu jirayaa intay arrintu qabiilkaa tahay xisbigiina qabiil ku salaysan yahayna cid mas-uulah oo Soomaaliyeed oo hadda wakhtigii dowladihii hore ugu horreysay Soomaaliya madaxweyne iyo prime minister iyo wasare iyo xildhibaan iyo dadka ninka ugu badan baa elementary school ka baxay dad iyagu wax isbaray oo akhrisan jiray waa jiraan laakiin wax dadka hore wax bartay kuma jir laakiin leadership qualities bay lahaayeen oo dad badan oo waqtigaa joogay yaa haddana habkay rag maamul ama dadka u maamulayeen iyo hankay lahaayeen iyo yoolkay ku hiranayeen dee waa lahaayeen hadda dadkii anigu halka kama warhayo laakiin Somaliland oo kale sanadkii jaamacadaha ka jira ilaa 9,000 oo arday baa ka soo baxa anigu markaan ka baxay secondary school Sheekh kalaaska yagii 14 baan noo ahay waa secondary school waa ka quree waddankaas oo dhan jira xamarna 2 secondary school baa jira wax jaamacada ka baxa hadday ugu bataan 20-30 bay ahay markaa dawladnimada la helayaa waxaan badnayn oo waqooyiga iyo qolyaha koonfurta marka aniga waxay igu muuqataa rajada Soomaalidu kulley waa jeclaan lahaa inaan ka agdhowaado waa jeclaan lahaa hadda ninku hadduu siyaasad ku jiro saad doontid wax ma sheegi kartid uma qori kartid inaan wax qorana waa jeclahay meel jaamacad ama jigjiga ha noqoto ama sabab ha noqoto meeshay doonaysaba ha noqotee haddiiba arrinta aan wada ay shaqayn weydo waa jeclaan lahaa meel aan u rogto geeska Afrikana aanan ka fogaan oo arrimahan ka socda ama warkeeda inaan hayo ama aan wax ka qoro waa jeclahay hadda waxaa ku sugan tahay dowladda Soomaalida tan isbeddelka ku dhac ku noqdo isbeddela wallaahi de runtii waxa aan maqlaaba horta nabadda ugu weyn laakiin de halkan kuma go'na waxa sababa ka socda halkan nabadda hadda waa muuqataa oo gobolka qura ilaa heer nabadda ka jirto weeye horena markii horeba Soomaalidu dee waa ahaayeen shantii qowmiyadood ee maamulka iyo waxaan dhisay laakiin effectively maamulka qoliyaha TPLF ay dhiseen wuxuu ahaa maamul highly centralized oo wax walba awoodoo dhani ay taalo Addis Ababa waxaan u malaynayaa hadda siday wax u socdaanna waa ilmi roganaysaa waa foolanaysaa laakiin waxay dhali doonto runtii wax gooni u ah kilanka ma noqonaya iyo ismaamulka Soomaaliyeed waa waxa sida Ethiopia iyo geeska Afrika oo dhan wax ku dambeeyaan laakiin hadda jabhadii iyo maamulkii inay wada shaqaynayaan oo laba xisbi ka inay la heshiiyay oo understanding uu jiro oo maamulkana xisbigan xaakimka uu ka mid yahay qolyahan jabhaduna xisbi mucaarida ay yihiin laakiin Addis Ababana iyo xagga sarana
in la isfahmay ay heshiiyeen halkanna dee maamulka ay heshiiyeen oo ay hadda wax carqaladihii ayan muuqan taas runtii waa ka isbeddelka ugu weyne muuqda iyo nabaddan dee dhulka taalla oo hadda haddii jabhadduna meel si ay wax u aragto maamulkana si kale u arko waxay u noqon lahayd dee jugjug meeshaada joog waayo xilligii ra-iisul wasaaraha soomaaliya aad ahayd sida ogna waxaa yaraa mas-uuliyiinta federaalka ee ku jira soomaalida hadda waxaa ku jira federaalka mas-uuliyiin waxaa jira mas-uuliyiin soomaali ah oo xeer federaala ku jiro oo ay ka mid tahay wasiirad filsan axmed iyo mas-uuliyiin kale may waa runtii dad ka dhex muuqdaa waa jiraan oo especially axmed shide dee waa nin soomaaliya nin maamulka ka dhex muuqday oo soomaaliya oo marka ilaa hadda mar walba ama wasiir hore maraan anugu kala kulmay Addis Ababa wasiirka gaadiid iyo waxba waaga ahaa warfaafinta iyo meel buu ahaa kabacdi wasiir ku-xigeen maaliyadda haddana waa wasiir ku-xigeenka wasiirka maaliyadda marka waa positionska ugu culus ee habka federaalkii waana ku faraxsanay nin Soomaali inuu awoodahay aad iyo aad baan noogu faraxsanahay filsan oo kale oo gabadh dhalinyaro ah oo wax baratay oo active ah oo ku dhaclay oo isa soo saartay inay ka mid tahay aad baan ugu faraxsanahay aad bay u dhiirigelinaysaa in badan oo Soomaaliyeed qof Soomaali oo dhowr iyo 30 jir ama 40 gaadhay dhalinyaro ma aha cimrigeena intaanu ku gaarnaa ama average afartameeya boos weyn oo haweenkii iyo carruurtii dhalinyarada meel ay misaal u noqon karto dadka madow ee hadda gabadhaas la yiraahdo Kamala Harris vice presidentka dad badan oo aqalliyaadka dadka laga tiro badan yahay ama madoobaadeen ama muslimaan ama immigrants aadeen yaa runtii u arkaya inay iyana rajaleeyeen inay iyana meel sare ay gaari la marka filsan oo kale gabdho badan khaasatan gabdho Soomaaliyeed oo wax bartay yaa sida iyadu ay ku soo baxday aan ugu soo baxay waday u furtay misaal fiican bay u noqonaysaa waana ku hambalyeynaya waana ku faraxsanahay waxaana rajaynayaa dadka mustaqbalka geeska Afrika dowrka ku yeelanaya sidii wax loo qaban lahaa ee nabad waarta loo gaari lahaa integration iyo isu imaado geeska Afrika oo dhan ka qayb gala historica taariikhiga inay ka mid noqotana waa ugu hambalyeynaya waana ugu rajaynaya waxaan ku siin doonaa hadalkaad ugu dambeeyay adiga oo soo gabagabeyn doona hadalkaad ugu dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa aad baan ugu faraxsanahay inaan magaaladan Jigjigaimi aad bay dhiirigelinaysaa waxyaalaha hadda ismaamulkana sidoo u shaqeynayo ee Addis Ababana uu la shaqeynayo waxaan rajaynayaa in badan baa iyaga Soomaali lahayd Soomaali galbeed oo wax badan oo sacrifice loo sameeyay iyaguna dowrkooda inay cayaaraan oo kow iyaguna heshiiyaan oo leadershipkii loo baahnaa iyo yoolkii ummadda Soomaalidu lahaan jirtay inay noqdaan dabku meeshu ka baxayo ifku ka muuqdana inay noqdaan kana warhayaan oo kulley waxa xamar yaala waanayna wada khusaysaa inaan la niyad jabin laakiin in badan oo u tafaxaydata ma aha inaan anigu meesha ka dhex muuqdo laakiin wanaagga iyo ka qaybgalka dhismaha iyo haddii loo dareerayo axsaab mabda iyo qadiyad ku sugan magaaladan SYSH markii la aasaasay 1943 baa SYSH la sameeyay magaaladan meelihii ugu horeeyay ee ugu xoog badnaa SYL bay ahayd waxa uu dhibaatada keenay markii Ingiriisku 1948 wax kala wareejiyay dhibaatadii gaadhay dadkii lagu laayay iyo waana la socdaa haddana waa istaahishaa leadershipka Soomaalida iyo magaalada aan joogay Hargeysa على أهم وحن قبا لبدا مقالو meelaha rajada ugu weyn aan ka qabo Soomaali weyn hadda waa la isu socdaa waa la iska warhayaa inay dib u madoobaan oo de aqli iyo xikmad Ilaahay ugu manaystay hadiiba ay noqoto oo Afrika oo dhan baaba
isu yimi haddii Soomaalidu markaa iyagu Horn of Africa-daasoo isugu timi intooda lagu ururin karo waa rajo fiican ayaga oo dawlado kala duwan ah iyagu hadday doonayso hal dawlada hadday noqonayso meeshan aynu joognaa wanaaga Horn of Africa door weyn bay ku leedahay laano dadkan haddayan raalli ahayn haddayan kalsooni jirin haddayan u arkin dantoodu inay sabab ku xidhan tahay Soomaali kale oo Ethiopia u arkaysa danay leeyihiin inay taalaana ma jirto marka warkayga waxaan ku soo koobaya ma la dhihi karaa fargelinta Ethiopia Soomaaliya ku heshay way dhamaatay wallaahi dee dawlad daris leeyahay weeye hadday Soomaalidu helayso iyaba waa fargelin lahaayeen iyaba wax danta Soomaaliya taa laguma laakiin boqolkiiba laguma eedayn karo laakiin iyaga sidii hore lama waa jirtaa gobolaysigan iyo walwalka Jubbaland laga qaba iyo ciidamada Ethiopia joogay iyo waa ogahay waxyaalaha dareenka waa u qabaa iyo walwalada muuqda laakiin anigu waxaan qabaa danta Ethiopia iyo maamulkan hadda joogaana kulli inta aan dhawaaqooda iyo aan ka maqlayno wax runtii aan ku hiran karno oo yoola waa u eegay oo integration-kan iyo halaysu wada yimaado oo hadday noqoto Eritrea ama Ethiopia oo Sudan ama Soomaali shirarka iyo hadallada meelaha laga sheegaya waa warkaas inay sii socdo waa rajaynaya in maadaama geeska Afrika iyo midoobayaan Soomaalidana inay isaga warhayaan hadiiba la midoobo haddii even economically la midoobo waa maqlaya Ethiopia weligeed waa ku taamaysay inay dekad yeelato Soomaaliyana waxay dadka Soomaalidu leeyihiin waxa ugu weyn waa baddaas danaha la leeyahay dekaduna macna waxa yeelanaysaa haddii suuq weyn ka dambeeyo suuqi weynana waa Ethiopia ilaa Afrikadaas maqdan moota Soomaaliya dekadaas inay sidoo kale isticmaasho integration lagu raaliyahay hadda aan midowno madaxweyne muxuu yeelana dawlad qura waxaan ka hadlaynay Hargeysa iyo Khaatumo ama Hargeysa iyo Xamar taadi sababana kaba fog laakiin wax lagu hiran karo oo danteenu ku wada jirto waa istaasha waad aad baa mahadsantahay adiga mudan waa ku mahadsantahay walaashiisa Nabad TV ma aad baad mahadsantahay mahadsanid wasaare hawsha fiicanna sii wada waa mahadsantahay intaa waxay noo eeg daawadayaal barnaamijkii siyaasiga iyo siyaasadda oo aad ka daawaneyseen TV-ga caalamiga Nabad TV oo maanta noogu ahaa marti siyaasi weyn sidoo kalena ahaa wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliya dawladda haatan jirta Cali Khaliif Galeer inta barnaamij kan oo kale aan kulmi doono waxaan ku dhaafeynaa daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo